الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها يا أصحاب ميل كستو جوكتان إلهي سبحانه وتعالى وحنكبر يا كلن كان نكدق وكلن بركيسان إلهي سبحانه وتعالى عرفك قلبي يكسو كلمة حقه إلهي سبحانه وتعالى قلبي إن يدقيه إننا أفرو نجنا دقو كوا هذا الكدق استكيسا ونكسن الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب انت كدب وحان جعل هاي وأصوى قلي لايفكا أنا معلمهم بكم مغناء أفر قضب قضب ككواد وتعسي قضب كاللبادنا وسؤال قضب كالصدحادنا ووعدي يواني يحصوص قضبك أفراد قدامينا ودعو قضبك هوري وتعسي ومدى صوماليا وأيضا ضمبه وحيا هي تعسي وجوك وحن كتعسينا يا قرحي حالي كدعاي مقالة مقدشو ولقوحة سوقي لليرى الصوماليات ومستقبل أمدا sida aan wararku igu soo gaarayeen ilaa xalay newska aad baan uga maqnaa oo ma aanan mar dambe ayaan maaragtay ku baraarugay warka sida aan warka ku hayo dhalinyaro mustaqbal lahayd wax soo baratay dalka wax soo baratay qaarkood dalkan aan joogay ee Turkiga ay ka soo qalin jabiyeen ama ka soo baxeen hawla fiican ay kaga aadinayeen dalkooda iyo mustaqbalka ummadooda saan rajaynayno dhalinyaradaas waxa lagu xasuuqay qaraxii xal magaalada Muqdisho ka dhacay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu dhalinyaradaas iyo dadkii muslimka ahaa ee ku waxyeeloobayba kuwa ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmayba Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa dhintayna u naxariisto dambigoodana dhaafo Ilaahayna subhanahu wa ta'ala jannadiisa geeyo oo waa la gubay gardarra lagu dilay iyagoon waxba ogeyn oo waxba moog ah baa la gaaday intaasuba marka aynu sharciga islaamka iyo diinta islaamka eegno waa arrin dulmi ah oo weyn dad muslimiin dhab ahna arrinta ma sameeyaan waayo qofka muslimka ee dhabta ah looma ogolo qof muslima oo mu'mina inuu dilo wama kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an gaf iyo kama maahina uma dilo marka waxa ka dambeeya iyo waxa abaabulay ma aha amalki muslimiinta ma aha marka waan ka tacsiyeenaya naftayda iyo ummadda iyo eheladoodiiba waa uga tacsiinaya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigoodana dhaafo jannadiisana geeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariisto qabrigana Ilaahay u wasiiciyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala su'aasha qabrigana u khafiifiyo u fududeeyo eheladoodii iyo ummadana samir iyo iimaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ka siiyo musiibadaas ummadda Soomaaliyeedba sanadihii u dambeeyay oo dhan dul haraysay oo la deganayd taas marka waa tacsidaas arrinta labaad ama qodobka labaad ka hadlay waxa waa su'aal weeye waana su'aasha aan halkan ku qoray xasuuqa caasimadda Muqdisho ka dhacaya ma wuxuu noqday xaalad aan xal lahayn xal aan xal lahayn miya oo la xallin karin waa su'aal mudan in la isweydiiyo waayo mushkilad kasta adduunka xal bay leedahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala cudur kasta oo adduunka yimaada waxa weeye daawo leeyahay wax walba daawo leeyihiin ma arrintan inagu socota ee xasuuqan joogtada ah ee maalinba mid aan ku soo toosayno
markaan midkaas tacsidiisa ka baxno ayaama aan joogno oo hawlaheeni iskaga noqono haddana aan mid kale ku soo baraarugno oo dad badan oo qaali ah inagala tegey sababay u tageenna inaan garanayn maxaalad aan lahayn baa xal baa maya xal way leedahay laakiin xalkeedii lama raacin lamana qaadan mana muuqato in la qaadanayo ma muuqato haddii runta loo hadlayo xalkeedu waxa weeye kow in waxa kanu inaanay diin ahayn fikir ahaan iyo caqli ahaan looga hortago oo la caddeeyo taasna wax badan baa laga caddeeyey wayna caddahay waana caddaatay dadka muslimkaana meel kastoo ay joogaan way ogaadeen qaraxyadan iyo xasuuqan inaanu wax diinta islaamka shaqo ku leh aanu ahayn meeshii kale oo la rabo ha loo tiiriyo ciddii kale oo la rabo ha loo tiiriyo laakiin islaamka iyo diinta islaamka looma tiirin karo taas way dhammaatay qodobka labaad oo lagu xalliyaa waxa weeye waa dowladnimo dowlad dhaba wey oo mas-uuliyaddeeda qaadata oo dadka waxay kaga duwan tahay dowladdu waxbay muquunisaa xoog bay wax ku qabataa gacan bay dadka nabadgeliyada iyo acraadda dadka iyo sharaftooda iyo xoolahooda wixii ku xadgudbaya bay dowladi ilaalisaa dowladii saasay u taagan tahay meel kastoo aad joogto gaal iyo muslim waxay tahayba shaqooyinkeeda ugu weyni waxa weeye in dadku nabadgelyo u socdaan hubka iyadu ay haysato muquuninta iyo xoogga iyo tabarta iyada keligeed ay leedahay amarka iyadu ay leedahay haddii aanay sidaas ahayn dowlad laguma magacaabi karo waa la hafrayaa haddii la yidhaahdo waa dowlad hadday iyadu ismoodana waa qalad sidaas darteed waxa weeye kaalinta meesha ka maqani ma aha wacdi sida dadka qaarkiis ay u maleeyaan waayo waxa kan wax wacdi iyo diin iyo qalad kaliya ku socda maaha waa qorshe waa projecti waa mashruuc ummadda lagu xasuuqayo deganaan la'aan loogu diidan yahay inay degto dowladnimo inay hesho lagu diidan yahay marka waxaa lagaga horta waa in qaabka loogu talagalo oo si dowladnimo ah oo xoog ah oo qorshe leh oo dadkeedii loo adeegsanayo lagaga hortago waxay u baahan tahay marka dowladnimada uga baahan tahay afar qodob bay uga baahan tahay waa midda koowaade go'aan ay dowlad ay ka go'an tahay inay waxa kan amni darrada ah dhulkeeda ka ciribtirto waa go'aan madaxweyne iyo hadduu yahay golihiisa iyo shaqaalihiisa iyo wasiiradiisa iyo wixii isaga la shaqeeyaba hadduu yahay dowlad ay ka go'an tahay oo qodobka koowaad ay u tahay dadku inay baahida koowaad ee ay u baahan yihiin oo ah nabadgelyo inay dhulka u seexdaan oo u socdaan inay helaan waa mas-uuliyadda koowaad ee dowladnimo dowladii ay leedahay marka dowlad ay ka go'an tahay go'aan waa inay tahay waa qodob waxay kaloo u baahan tahay qorshe markii go'aanka la helo qorshe waa in la dejiyaa qorshe waxa kan lagu ciribtiro oo lagaga hortago oo ah ciidankii oo ah dadkii tababarnaa oo ah tabihii la raaci jiray oo ah wixii yani sirdoon iyo mukhaabaraad iyo dabagal iyo ciidan iyo magaalada koobid iyo dhinac walba u baahan suryo walba u istaagid iyo warhayn iyo guritirin laga daba tago oo la daba galo qorshay u baahan tahay qorshe dadka amniga ka shaqeeya dadka ciidamada ka shaqeeya baa yaqaan saddex waxay u baahan tahay dadkaas amniga ka shaqeynaya ee loo jaaday ee loo asteeyey in kharashka ugu fiican la siiyo askarta waa in lacag fiican la siiyaa ciidanka waa in la si fiican loo tababaraa nooc kastuu yahay iyo laamihiisa kala duwan uu yahay hadduu boolis yahay iyo hadduu ciidan difaac yahay iyo hadduu yahay sirdoon intaba kharashka ugu badan dowladuhu bajetiyadooda ama miisaaniyadooda waxay ku bixiyaan oo ay u haburaan oo u qalabeeyaan ciidanka nabadgelyada sugaya haddii aan nabadgelyo jirin dal laguma noolaan karo nololina ma jirto kharash buu u baahan yahay arrinka saddexaad wuxuu u baahan yahay dadkeedii xirfadda lahaa in la adeegsado dadkeedii xirfadda u lahaa in la adeegsado min mas-uulka koowaad
أمني كشقينية هدو يهي وزير أمني هدو يهي وزير داخلي هدو يهي عيدا هدو يهي إن داد كيدي اللي أديك سدو أرنكاس ما اللي أديك سدي انتبا وحا كم وقتا إنان سيدي اللي ربي دولدو أما تن هدا جوكتا هالنقط أما تيكه الرئيسي هالنقط أما تيكسيه الرئيسي هالنقطو يا لابيو طوبان سنو قدام بيسي هدان بكسو قادنو إنان أفرتا قضب مدنا سيدي اللي ربي اللو قبان ومدى كوادي قوان oo lagu tashaday in dalkan amni xumada iyo dadka amniga khalkhalka gelinaya xukunkii ilaahay lagu qaado oo laga tirtiro oo laga ciribtiro sida ilaahay subhanahu wa ta'ala u amray go'aankaasu ma muuqan labo qorshaheedii la dejiyo ma muuqan askari meelaha lagu soo tababarayay banaanada iyo security gaar ah bay ka shaqeynayeen waana kala yaaceen waxa weeye سيدي اللي ربنا قرشيدي لو ما دقن تكنولوجي اللي ما أديكسن يا مقالة واحد دوبيا كاميروين دوبيا أسكر ميل والبتاجن أو ماركتي نظام سن سيدا أنو رولك كلا كو أرقنو أو هذا يلا أن نبض مقالة أنقرة أو مقالة إسطنبول أو مقالة أدمريس ومقالوين كأدونك هذا أسكر كو قاشامن أو قرق ساء وهيستا أو سيدا أتاجن حوي مركا قرشوي مدة أفراد صدحاتنا وحوي خرجكي لو باهنا بجت يدي لو باهنا ملسي أسكرت خرجك وباهنا أسكرت سوماليا بل إنه فيرنو أمني بالليه ما له هلو ومخايلها النبض لو سيحضو وقرح يدا لجوجيه بالليه مالين دويد وحانو كهد ليني ورتدباتن كوزير أو أقرتين يا مودن خرجك إن لو بحيو إيا شن تبقل مسي أفر تبقل حلدبانو إيا سنة الرؤية وحي دبيا عايا يا مدن خرجك الدولة كبحة يانو أسكرت كبحه يانو أمني كبحه يانو قرشة أمني كبحه يا مدن كيبا مدن أسكرت معلوشة قدي منيس ومشاهر كود الله بدأ $100 أو $100 يهي أو أيا هلي هي سيديل لوربا مرر بدن بان كهذا الناس سيديل لوربا إني أمني تيران هدون آترا هذا أمني كان وحكا حسلية يعني عيب هين مدحوينياشا iyo mas'uuliyiinta koowaad in hadalka la soo 10 sano u dhameeyay hadalka ku celceliyaan waxaan ka qabtay amnigan wax ka qabtay adoo askariga siinaya $200 arrin sax ma noqonayso warkana beeninay haddaad amniga wax ka qabanayso ciidanka waa inaad xoojisaa qalabkiisa waa inaad xoojisaa budgetka ugu badan waa inaad isaga siisaa meelaha kale waa inaad ka dejisaa kharashka macna darrada u baxaya xafladaha ku baxaya meelaha maala yacniga ku baxaya heesaha ku baxaya xafladaha casuumadaha ku baxaya dadka ay maaragtay inta wada maaragtay kabshaxeen kharashka ku baxaya waa in amniga askariga bacaya ee wadada taagan ee $2 baryaya sidee buu amni u sugaya idan kharash laguma bixin hadda oo aynu taaganahay hadda waxaynu joognaa November 2020 doorasha la galaya kharashkii xagee aadi lacagtu xagee aada محافظ يا معارض لعجهود حجة آدم حجة بجت يد الله تمنيا حجة العجها الله قصو قادنا يا بورسوين كالعجها دولة لها شيء حجة الله قصو قادنا يا من أمن اللي سجاه مسوا إن كرسي اللي جاره والجل اللي جاره إذا خرجكي كم بحن ماشي للربي كمرة بحه حدنا كم بحه مدحوينه هذا الشوجة بانكو بحين مدحوينه كهرية بانكو بحين مدحوينه كسي هرية بانكو بحين صدق حدود بوان نول يهينو واد شوجان مقدس شيء فرديان هذا صدق حدود وحانو لنا كوما أيام بحين ومانا هجر بحين وحنا الدليلة وركيجا وحا الدليل أسكري الله بقول $1 أن هلي كرين أيا وحال اللي هي وحان ربا إنه قرح يد بابي oo la diriro ya wasiirka xildhibaanka haddana ahna $10,000 buu u xaadiraya 20 qof oo shaqaalahana waa u shaqeynayaan 3 baabuur ama 4 baabuur buu wadada ku maraya imisa khalash ku baxa imisa shidaal ku baxa imisa shaqaale ku baxa imisa mushahar ku baxa imisa fakfakh ku baxda imisa diyaarada ku baxda imisa kharashaadka ay Nairobi iyo Istanbul iyo Ankara iyo Abu Dhabi iyo Dubai ku wareegayaan imisa ku baxda war ilaahay ma laga boqo maruntaanu sheegnaa ma ilaahay baanu ka baqnaa mas qabiil iyo magac iyo qof saaxiiba ayaan maartay muraahayna maya
إذا خرج كنا لقوم بحين مركب قرآن مجرو يعني رابطان وحكني لبابيه ما موقضو قرشة ما موقضو أصيد الربي معها خرج كي يبجت كي مجرو لقو خرج كره لها ضد كذي إن لأديك سده يحرفض هذه بأوباهنتا مرارك قاركود حرفضة مرنا مد ودني وي أو ضد كاجا مرنا وحوي هدأ ضد كاجا حتى وحيالها قاركود كويدو ضلال كلا الكهليسة أدون كلا أو كلا ولا لا أما كلا صاحبة أو مسلمة أو ولا لها باجرات كأما هنكرتا قلب كواد هلي كرتا أو خرج كواد هلي كرتا أو خبرته واد هلي كرتا لكن وإني أديك الربيتان يقرش يخرج وإنه كاجرة حقاق وإنه كي ماذا هدي أنت الله هلو سببت هذه باللقاتي بالله كرا لكن أنت سبهداني ولين ولا ليال سؤاش اللي سويدين يا وحوي سو مالين والبقوفة دين مينو ما أنتنا هل كان اللي قرحي لبعتن ضد كاني أقوى ناكسنابا كتجي صدن ضد كاني أقوى ناكسنابا كتجي ضد كي وقف عنابا كوبا بعي مالنا مال لقيت تعسينية كدمنا والي لا ويا كدمنا والي لا هي حالة عادي هيد بيسجن نقنيسا هوتيل الله لو شريا أوليه بالله وضيا يا أوليه إيه طور الشديد خرج كي هذا وحكم بحياة مدح ربطه سيدا يكون جوجي لهيد كرسي يكون هيسان لهيد بخرج كوب بحياة مرونتي بقى مسوا بينتي خرج كو أقوب بدني كان بينكو كوب بحياة خرج كو أقوب بدني حل بان سيدا كو صح شاب كوب بحياة خرج كو أقوب بدني سيدا بان قبل الله وقصوا بحا وأنيجا يقول عضية وكوب بحياة خرج كو أقوب بدني دين معارض كان وحكم بحياة سيدا أنا قلنا كرسي يكون جارة وكان جو وقع صدا هذا الرجال وحن لنا مركا أنا هذا كوا لما هالليو هذا الكيو كما صعده أو قلب كصدحات بنكو شيء دونه لكن أرنتان حسوقا جوك تدا شلي بي أهاي أفريو 8 أكتوبر ما إلوني قد يدي صوب ما إلوني يا شامو ما إلوني وحي ددنا قبحي ما إلوني وح جوك سنة يمياه توبص عطا مياه مالين والبدد بانجينا أو حال الأورية أرنتوا عادي وحول بيدرالك ما يكدعان وسير سو استاجي ويكدعان بل هذا تصالها وحاليا ميد محاو قدام يكن هذا لا سي وضو دولدان هذا حكومه كابينتكي هذا دماداي oo 3 sano iyo barka joogay meel ma ku sheegi kartaan wasiirkii dhamaa amniga loo xil saaray dawladda haday daacad ka tahay waa rabitaanka qodobkii go'aanka ahaban daba jooga go'aan baa loo baahan yahay qorshe loo baahan yahay kharash baa loo baahan yahay dadkeedii xirfad laha in la adeegsada loo baahan yahay hadaanan afarta cabirka ah aanan ku arag dawladda waxaan garanayaa inaanay u socon inay amniga wax ka qabato ee wax kale ku fikrayso ama dad asxaabtooda shaqo siiso ama wax kale keento ama siyaabo kale loo shaqaysto mujaamala loogu shaqaysto bay keenaysaa laakiin dadkeedii 3 sano iyo bar wasaaradda amniga xagee jirtay meel ma ku sheegi kartaan ilaahay baan idin ku dhaariyay meel ma ku sheegi kartaan 3 sano la soo dhaaf muxuu ahaa wasiirka amniga xagee ahaa wasaaradda amniga ka shaqeynaysa muxuu ahaa qorshaheedu yaa ka shaqeynay maxay ka shaqeynayeen ma la sheegi karaa idan halkaas waxay tusaale u tahay inaan dadkeedii iyo qorshaheedii iyo xoolaheedii midna lagu bixin iguma qancin karaysid marka maanta saaxiibow inaad tiraahdo amnigiinaan ka shaqeynaya ama amniga meeshaan waan ka shaqeyn kari weynay waxbaanu ka qaban kari weyn waa laga qaban karaa qaraxyada waa la joojin karaa wadadeedii laakiin waa in la raacaa jidkeedii waa in lala yimaadaa lamana imaanin dawladda hadda joogta iyo tii ka horeysay iyo tii ka sii horeysay haddaan runta ilaahay bay leedahay u hadalno midina sidii la rabay uga ma shaqeyn maanta marka maxay rabaan hadda 3 madaxweyne oo fatradaas 12 sano joogay saddexduba waxay rabaan inay soo noqdaan oo kursiga mar kale ku fariistaan walaalayaal maxaanu idinku fariisinaa kursiga maxaanu idinku fariisinaa sidii baa qarax noo haysta oo maalin walba caruurtii iyo dhalinyaradii wax soo baratay u baaba'aya sidii baa baadda naloo ka qaadaya sidii baa naloo canshuuraya sidii baa jidadku iyo wadooyinka u go'aya hadda kamaba hadlayoba caaw qodobka amniga keliyaan ka hadlaya si aan bal iyo oranin maxaan kuu sheegaa jidad iyo
cisbitaallo iyo maxaan kuu sheegay baad ka hadli jirtay mar walba dawladdu may qabato war waaye caaw cisbitaallo ka hadli maayo oo waxbarasho ka hadli maayo oo jaamacado maa la dhiso ka hadli maayo oo jidka muqdisho iyo kismaayo maa la dhiso ka hadli maayo jidka muqdisho iyo jawhar maa la dhiso iyo beledweyne ka hadli maayo dekedaha hobya iyo muqdisho iyo kismaayo maa la furo adduunka ay la qabsato ka hadli maayo caaw ka hadli maayo development ama horumarin maba ka hadlayaba waxaad mar walba qolyaha maaragtay dadkan u sacabtumayaashu waxay yiraahdaan haa maaragtay waa inaadan dalkan meel fog buu ka imaanaya marka amnigiisii baan fadhiyin amnigaa laga shaqeeya waayo amniga kaliya iga shaqeeya bal amniga kaliya meelaha lagu ogaado tusaale idiin soo qaadaya warkaasuna kolley dad xogogaalana waa sheegeen waddanka Uganda waad ogtihiin marar badan in ay ka dhici jirtay inqilaabyo badan waqtigii Ciid Amiin oo Milton Obote kuwii ka dambeeyay ilaa uu yimaado madaxweynahan hadda jooga Museveni dalka sidoo u qabsaday dadka reer Uganda hadda tagto dhowr jeer baan tagay 2-3 jeer waxa ay ku oranayaan annagu ninkan wax kale uma hayno waddankan nabadgelyadiisa buu sugay habeen iyo maalin waad socon kartaa sida doontaan u socon kartaa isaguna waa yiri anigu wax kale idin ma hayo yiri shaqaysta idinka aniga nabadgelya iga taqaan annaga haddayna oran lahaayeen haddayna oran lahaayeen xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdullaahi farmaajo haddayna oran lahaayeen ama midkood uu la soo bareeri lahaa wardadyo Soomaaliya aniga hal shay kaliya idinka shaqeynaya wax kale hay gobolaha ay dirineen oo meelo kale hay dirineen oo istushaha ay dirineen oo dhaqaalaha iga suginina nabadgelyada magaaladan caasimadda khaasatan iyo inta dawladdu joogto ayaan sugaya wax kale hay qabsay wax kale hay weydiinina kadib idinku shaqaysta haduuna oran la caawa ka aamusilay shibaan oranay garbu naga jooga baan oranay haddii caawa qof kastoo Soomaaliya soo doono uu u mari karo iyo qof kastoo ajnabi oo dhulka imanaya soo doono uu u mari karo dhulka uu mari karo madaxtooyadii ay ku jireen saddexdooduba oo sidii ciidamada Afrikaanku u ilaalinayeen wali u ilaalinayaan 12 sano ayaa haddana ay soo taagantay meeshadii bay taagantay waxba lagama dhaqaaqin maxaan marka walaalayaal maxaan markale ku rabtaan inaan idinku dooran annagu idinmaba dooranne maxaad rabtaan markale maxaad rabtaan kursiga ku rabtaan miyaanu jirin jixinje miyaanu jirin xataa sarigasho miyaanu jirin xishood miyaanu jirin adduunka hal qarax hadduu meel ka dhaco wasiirka dakhligu waa iscazila madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal baa iscazila oo waxay ixtiraamayaan oo qadarinayaan dadkooda mas'uuliyadda loo dhiibtay laga sugayo ayay qadarinayaan saas darteed way iscasilaan innaga waa soo taagan yihiin bal waxay rabaan mar labaad iyo mar saddexaad inay ku soo noqdaan dalal badan ayay ku dhacday arrintaanu arrin wacdi iyo walaalayaalow arrintaan waa xaaraan dhiigga muslimku waa xaaraan keliya kuma baxayso culimadu caddaysay dadkuna cadday laga hadal waxaanu inaanay diin ahayn la cadday aayaadkii la akhri axaadiistii la akhri bir bay u baahan tahay bir لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إلهي سبحانه وتعالى وحليه آيات كتاب كان واسود جني كتاب ككلي اسمه سود جني برتنا وان لسود جني وبرت محل لو سود جي كتاب كان واحد لو سود جي حقي إنه عضيو عدالتي عضيو لو صعون لها برتنا واحد لو سود جي قفكي عدالتها إيو نبتقليداس إيو طريقة توسن كسعون وايا إن برت لو قبطو أيا لو سود جي هذا برتي ويا واحد ماشي كمقن برتي ويا واحد ماشي كمقن برتنا waa dawlad ba gacanta ku haysa dawladiina waad ku fashilanteen nimankii naas hadda meesha ku shiraya iyo kuwa jooga waad ku fashilanteen
inta aad soo waqti ka soo lumiseen waa ku filan yahay ee ka daaya kaas halkaasna uga baxay qodobka saddexaad yaa mudan in lala hadlo wacdiga loo jeediyo aniga wacdigayga iyo xusuusintaydu kuma socoto nimankan siyaasiyiinta kuwaasu waxaan anigu ku mataalaya wama anta bimusmicin man fil qubur xabaalay ku jiraan man noola la hadli maayo markaani hadalna iskaga khasaarin maayo hadal iskaga khasaarin maayo hadalkayguna kuma socdo innaka la tusmicu almawta wala tusmicu summa adducaa idaa wallow mudbiriin dadka xabaalaha ku jira ee dhintay miyaad wax maqashiin kartaa maya ma maqashiinayo markaan madaxweynayaashii hore ee hadda taagan ee haddana raba kursiga haddana ku qamaamaya iyo kuwa jooga midna hadalkaygu kuma socdo waayo annagu waxaan ku hadlaynaa daliil baan rabnaa burhaanna ma ay tusin aanu ku aqoonsano hadalkaygu wuxuu ku socdaa dadka Soomaaliyeed ee damiirka leh ee nolosha leh ee aan damiirku ka dhamaan ee aan dadnimadu ka dhamaan ee aan gobonnimadu ka dhamaan ee dhalinyaradoodii iyo odayaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo cid walba rag iyo dumar hadalkaygu kuwaasuu ku socdaa kuwaas baa wax nool ilaahay ka soo bixin karaa anigana waxa isaarani waa inaan bayaaniyo wax kale ma saarin litubayyinunahu linnaasi walaa taktumuunahu aniga ilaahay wuxuu isaaray oo igala xisaabtamaya kitaabkii ilaahay haddaan aqaano inaan idin caddayo waxaan leeyahay marka dadka Soomaaliyeed walaalayaal haddii aad rabtaan inaynu sidaan weligan maalinba tacsi ku jirno tacsi ka baxno tacsi kale ku jirno tacsi kale ka baxno ma garad waa inaynu waxa kan inagu iska bedelnaa dadkan yaa xaaba u ah yaa qoryo u ah qabyaalad baa u ah qabiilkuna waa aniga iyo adiga iyo isaga iyo iyada weeye koow horta qalbigiina ilaahay ha ka ogaado qabiil iyo qabyaalad dadkii halkan idin dhigay oo waxa kan xasuuqiina waxba ka qaban kari waayay oo saddexda madaxweyne ee hadda nool ee inta cadeynaya ay u horeeyaan horta waa inaad qalbiga ka xirataan qalbiga waa inaad ka xirataan oo qabiil aydinan ugu hiilin arintu qabiil ma dadka qaar baa waxay ka markii aad hadasho uu xoranaya ma hebel buu taageersan yahay mise hebel buu taageersan yahay arintu waa dal arintu waa qaran arintu waa ummad baaba'aysa oo la'anaysa way arintu waa mustaqbalkeena arintu waa malaayiin qaxooti ah oo wadamada shisheeye wareegaysa arintu waa qaxooti caasimadii dhulkooda qaxooti ku ah oo roobku ku da'ayo oo gaajadu ku hayso arintu waa qaxooti malaayiin ah oo 30 sano la leeyahay xeryahay ku oodan yihiin sida Dhadhaab iyo Ethiopia iyo maaragtay meelaha hareeraheena ah arintu waa dal iyo dad arintu waa mustaqbalkeena weeye dadkan jeeblayaasha oo soo shaqo tagay ama aanay khusayn ama qaarkood xataa waxaba laga yaabaa inaanay xooladoon ahayn laakiin daciif ah oo aan waxba qaban karin ee kursiga iska holinaya kursi aanay mas'uuliyadiisa qaadi karin gelaya waan ogahay qaarkood inaanay xoolo doonay oo xoolo dan kala ahayn waan ogahay kulligood duuga ma aha dadka siyaasadda wada gelaya ma aha xaasha lillah laakiin waa isku midka aan waxba qaban karin ee hawshan gala iyo midka tuuga ah waa isku sibay natiijadu laano shacabkii baa mar walba ku khasaaraya waxaan la hadlaynaa marka waa dadka Soomaaliyeed weeye walaalayaal waxa kan waa inaynu horta qalbiga ka diidnaa oo qabyaaladan lagu taageerayo qalbiga ka diidnaa oo xoolahan lagu qaadanayo qalbiga ka diidnaa oo laaluushka doorashooyinka lagu qaadanayo qalbiga ka diidnaa oo inkirna oo nacna oo cidda wada aynaan ku gacan siin dadka arrintaas ka wada mas'uulka inagoo dhan way hadda waxa la leeyahay ergooyin iyo xildhibaanaha la soo doonto weel baa loo soo tolanaya yaa ka mas'uula yaa la siinaya lacagta dawladaha shisheeye laga soo qaadayo yaa la siinaya lacagta laga soo qaadayo dawladaha shisheeye yaa la siinaya soo inaga leeyno soo qaad in leenugu iibsado mustaqbalkeeni baa lagu iibsanaya dhowr nin
oo shaqaystayaal ah oo danahooda u shaqaysanaya ayaa inagu iibsanaya kan lacagta qaadanaya waa walaalkay waa inay adeerkay waa inay abtigay waa inay eedahay waa adiga inay eedaha waa inay abtiga waa walaalka waa inay adeerka codkiisi baa adiga magacaaga lagu iibsanaya ya reer hebel shantaasa laga soo qaatay waa la iibsaday reer hebelna shantaasa laga soo qaatay waa la iibsaday anigu dadkan wax iibsanaya ee boorsooyinka xaaraanta ah ee shisheeyaha laga keenay la hadli maayo hadalna igama banaanaba kuwaas inaan la hadlo ee inaga Soomaalida ah dadkiina damiirku ku haray waxa weeye waa inaad ka tashataan oo baraarugtaan walaalayaal oo waxa kan diidaan sidee loo diidaa codkiina fura diida waxa kan kulama isugu imaada adduunku maanta waa isu furan yahay baraha la isugu yimaada siyaabo badan baa loo kulmi karaa anigu idinama tilmaamayo laakiin haddaad rabtaan waxaan inaad diidaan oo daacad idinka tahay oo ilaahay idinka arko oo in ku filan xataa ilaahay uu ka arko dadkeenna Soomaaliyeed oo waxa kan diida ya ilaahay xaaladda way naga bedelaya in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa inaan diidnaa laaluushku inagu soconaya codkeeni buu ku soconaya magaceeni buu ku soconaya qabiil hebel buu ku soconaya waa inaynu diidnaa marka kadibna mustaqbalkeena inagu aynu ka tashanaa waa laynoo diiday codkeena inaynu bixino waa laynoo diiday masiirkeena iyo aayaheena inaynu ka talino cidii diidaysa hadiido mid dibadda ka yimi iyo mid gudaha jooga waa isku mid waa laynoo diiday waa inaan soo dhacsanaa xaqeeni way waa inaan layna duudsiin waa inaan inagoo soo taagan dhulka laynagu xabaalin waa layna xabaalnoloodinaya xabaalnoloodiska waa inaynaan ogolaan culimada waxgaradka aqoon-yahanka dhalinyarada dumarka nool oo damiir ku haray oo qalbigooda iimaan ku haray waxaan leeyahay Soomaaliyey codkiina fura waxa kan waa inaynu diidnaa dadkan tujaarta ah ee mucaarad iyo muxaafad siyaasadda ku jira ee Muqdisho jooga dan idin ma wadaan wallahi billahi inaan dan idin wada waadixna waxa ka ah oo ay ku caddahay ficiladooday ka caddahay xagee ka kanta la oranaa ficiladooday ka caddahay xogaalna waa ahay oo oday baan ma joogto dan soo socota aynu ka tashano marka waa inaynu ka tashanaa waa inaynu meel iska fariisinaa waxaan leeyahay marka ugu dambeyntii wacdigaas iyo kelimadaas anigu dadka Soomaaliyeed baan kula hadlay qof kastoo leeyihiin siyaasiyiin baa ku jira fiican xildhibaano fiican baa ku jira dad ahlu ra'yi odayaal fiican baa ku jira ganacsato fiican baa ku jira dhalinyaro fiican baa ku jira rag iyo dumar dadka Soomaaliyada damiirku ku haray way dadka la hadlaya war inaga oo malaayiin ah waxaan dhamayn dhowr boqol oo qof inay ina kala iibsadaan inay ina kala gataan inay xoogaa boorsooyin lagu soo qaaday ya oo diyaarada la soo saaray ay inagu kala gataan oo mustaqbalkeeni ku kala gataan oo xasuuqeena maalin walba uu sidan u socdo waxayna qabta maaha wax gar ahna maaha wax inoo qalmana maaha haddii laakiin sida aynu raalli ku noqono qof walba yiraahdo aniga maxaa iiga jira aniga maxaa iiga dana oo culimadu tiraahdo aniga maxaa iiga dana hebel baan ka baqay hebel baan ka xishoon iyo hebel baan ka xishoon ورزقنا إلهي باقبة أو نفتينا إلهي باحية أو ما أنت دمنا إنسان إلهي باق عنتك وهي عد كلام هيسو دل كان إنجاله مستقبل كان كنيوي دت كان لحسوق يعرور تنيوي دت كنيوي وحن دي بدها وريجا مالها كوبا بعيا كوبا لمبلي دت كنيوي إنجاله ربا إنه ديدنو تجارة سياسة ganacsatada siyaasadda masiirkeena ku ganacsanaysa ee aan danta kala hayn hadeynaan iska qabanayn de xaaladu sidaas iska bedeli mayso ilaahay baana noo sheegay in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
anigu marka waxaan wax ku dhisayaa bacdallaahi damiirkiina dadnimadiina rabitaankiina ya ayaan wax ku dhisayaa intiina nool ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nagu anfaco ilaahayna xaaladda noo bedelo kalimadda igu dambaysaa waa duco ilaahay subxaanahu wa tacaala lagama quusto naxariistiisa ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculyaa inuu ilaahay ummaddan arrin wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaro ilaahay waxaan ka baryey inuu arrintaada toosiyo ilaahay waxaan ka baryey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan kuwa akhyaara oo ka naxaya oo damiir leh oo qarannimo raba oo dadnimo raba oo soomaalinimo raba oo islaamnimo raba oo dadnimo leh oo han leh oo hogaamin leh oo aan dan gaara iyo qof jeclaysi iyo qabiil jeclaysi ka shaqaysanayn iyo kuraas gaara ilaahay inuu u soo saaro ilaahay inuu ka soo dhex bixiyo ilaahay inuu ka soo shaac bixiyo ilaahay inuu talada ugu dhiibo ilaahay inuu iyaga talada ugu dhiibo ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga qaado dhibaatada na dul haysata oo qalbigeenna qaflada ilaahay ka qaado oo qabyaalada ilaahay ka qaado oo qaadka ilaahay ka qaado oo xumaanta ilaahay ka qaado oo isnacaybka ilaahay ka qaado oo xinka iyo xasadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka saaro oo taladeenna ilaahay toosiyo baan ilaahay weydiisanaya ilaahayow waa la addamay salaad baa loo addamay ilaahayow umuurta yada toosi oo talada yada toosi oo kuwa akhyaarta talada noogu dhiib kuwa adaashaana ilaahu naga kaafi jeeblayaasha ilaahu naga kaafi kuwa cadowga u shaqay ilaahu naga kaafi kuwa naxasuuqaya ilaahu naga kaafi kuwa dhiigayaga iyo dadnimadayada iyo ummadnimadayadii baabi'iyey ilaahayow naga kaafi kuwa aan hanka lahayn ilaahu naga kaafi kuwa dulliga ah ilaahu naga kaafi kuwa ku shaqaystayaasha ah ilaahayow naga kaafi ilaahayow wixii xumaan ummaddan iyo hagardaamo la doona ilaahayow naga kaafi ilaahayow ummadda dad daacada oo diintaada ku socda oo kitaabkaaga raba oo islaamnimada raba oo dadnimada raba oo wadaninimada raba oo qarannimada raba ilaahay u soo saar ilaahay waa ka soo saari kartaa qaadir baa tahay ilaahay u soo saar oo kuwa ku bedela oo xaaladooda saa ka bedela oo ku hogaamiya ilaahay u soo saar alaadishana ilaahay naga kaafi aamiin aamiin sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi